calaamad 1 million views korkeeda waxa arki kartiin inay saaran tahay calaamad kale calaamadaas oo ahayd yani isha oo saddex geeska ah inay saaran tahay saa ujeediinba ishaas marka inta badan Soomaalidu waxay ku sheegaan inay tahay calaamad lagu garto shaydaanka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. daawadayaal kulanto aan wanaagsan halkan naga daawanaysan Buya Almeed hadda noo xirnay subscribe hadda noo xirnay video like saarsiin share garay kusoo dhawaada video cusub video aan marawina wax gooniya kaga hadlo marawina reaction video ka bixi laakiin weligii ma arkin sawir reaction laga bixinayo marka hore kusoo dhawaada video cusub maalmahan maadaama aan maqneen waxaan hadda jeclaysanaa video isdaba joog aan ka dhigno aan idin soo gudbin wax idin qanciyo aan ka hadalno waxyaabaha runta ah waxaa runta rabbiga kugu jecel Soomaalida tiri wax walba fikirkaaga ahana sida xaqiiq ah adoon cidna ku dhigin adoon cidna haysanin waxa fiican in xaqiiqada ka hadashid laakiin dadka in maadaama ay noo fahmaan mar walba inaan qof ku dhaganahay laakiin arrintu waxay taagan tahay annaga qofna kuma dhagin laakiin xaqiiqada jirtaan ka hadlayna waxaan rabaa in hal mar ila fiirisid muuqaal yar waxa jirto maxaa la dhigay ani aan macnaha ka yara shakiyay calaamad maadaama inta badan la isku haysto calaamadii marka waxay saaran tahay heesaha sharma kamid ah waxay u tahay thumbnail ahaan hordhaca heestaba ama heesta markaa gashid channelkaas ama mar walba heesta dadka ay arki karaan waxay arkayaan calaamadaas ay arki karaan marka si calaamadaas waxa loola jeeda aan ogaano iyo dadka maadaama calaamadaas in badan la dhex marayay arna marka hadda sababta ay meesha soo kortay waxaa la dhihi karaa horta lambar 1 sababo badan loo yeeli karaa calaamadaas waxa laga yaabaa qofka markaas channelka leh ama isla sharma bob inuu ogeyn calaamadaas waxay tahay laakiin aniga marka arkay oo dad badan aan la kaashaday aan tusay aan xas dhahay calaamadan waxay haboon tahay in dadka laga yaabo dad badan inay jaa mar hor arkeen laakiin ay wax kale ka aaminsan yihiin laakiin muhiimad ma ay inaan wixii aan arko laakiin aan ka hadli karin dadkiin ay si aaminaan wax kale ay ka si aaminaan oo qalbigooda uu ku jiro calaamadaas inay wax kale tahay laakiin qofka channelkaas iskale ama YouTube-kaas iskale ba ama maxaa la jiray thumbnail-ka ay u tahay hadda oo isagana ogeyn wax macna loola jeedin oo garnayn ba laakiin muhiimadu waxay tahay in aan ka hadalno aan isweydiino calaamadaas waxay tahay si qofkaas haduu ogeyn oo dadka say wax kale ugu fahmi lahayn oo ka qaado ama maxaa la jiray uu ogaado wax meesha u saaran inay tahay calaamadihii la isku haystay ama calaamadaha inta badan loo yaqaano illuminatics marka daawadayaal waa arki kartiin sawirkaas aad u jeediinba calaamad hadda u jeedin waa calaamada maxaa la jiray oo inta saaran waa calaamadii waxay saaran tahay heesaha uu Sharma Boy qaaday kamid ah waliba heesta Somaliland uu u qaaday heesaha mar walba waxa ognahay markii views ay gaaraan sida like million views amal ay gaaraan heesaha waxa soo korto calaamad muujinaysa million views ku muujinaysa thumbnail ahaan YouTube-ka ma ka dhigay qofka ma saaf ani ma xaqiijin karo waayo YouTube-ka ma arkin wali hees inta soo dhigay aniga ama muuqaal aan soo dhigay 1 million views gaaray oo calaamadaas la soo saaray ma arkin laakiin calaamad 1 million views korkeeda waxa arki kartiin inay saaran tahay calaamad kale calaamadaas oo ahayd yani isha oo saddex geeska ah inay saaran tahay saa ujeediinba ishaas marka inta badan Soomaalidu waxay ku sheegaan inay tahay calaamad lagu garto shaydaanka ama calaamad lagu garto sida u taqaani illuminatics marka calaamadani aniga maalin aan arkay waa fiiri waxaan saday calaamadan oo kor saaran millionka korkiisa saaran macnaha calaamadihii la sheegayo oo dadka isku haysteen Soomaaliya marka hadda waa fikir waxaan dhahnay calaamadan laga yaabo inay tii ahaynina niyo si fikir dadka si weydii waa si macnaha dadka si weydii waxa isku wada raacan calaamada inay mid tahay marka su'aashiis weydiinta badan waxay tahay calaamada mathaamel gooni oo fanaanka u saartayba mise calaamad qolada YouTube-ka ay soo saareen si macnaha ma aqaan marka ani waa si qolada YouTube ama shaydaanka isaga calaamada ma xayeysiistaa oo YouTube-yadu ma ku xayeysiistaa isdhahay su'aalo badan isweydiin marka su'aashaas kaliya waxa ka jawaabi karo qofka YouTube iskale asagaan jawaab ka sugeynaa hadii calaamadaas ay tahay calaamad gooni oo qolada YouTube-ka ay saaratay ama macnaha qolada shaydaanka si loo yaqaano maadaama ay dad lacag leh maadaama sida lagu sheegay ay lacag badan dadka xataa ay marin hawaayaan si lacag intay siiyaan ay waxay macnaha doonaan ka yeeshaan macnaha maxaa la jiray maadaama lacag badan ay leeyihiin qolada YouTube intay lacag siiyaan may dhaheen qofka maadaama Soomaali uu yahay famous uu yahay dad badan ay ku xiriireen YouTube-ka markuu million views gaaro calaamadaas anagu soo muujiyo si macnaha dad badan ay noo arkaan calaamadeena ay u noqoto mid dunida laga yaqaan sidaas miyaa jirto mise macnaha maxaa la jiray thumbnail ayuu qof ka dhigtay su'aasha inta badan anaga ay isweydiinay gudaheena ay macnaha saas ah inta badan marka dadka markii oo wariyihiin ama maxaa la jiray saxafiyiin ama saxafi wari waa halkii sorry
ama youtuber yihiin waxa markaa social media ka socdo waxay jecel yihiin inay ka falceliyaan. marka falcelinta waxay noqotay in ani isweydiiyo ani qudheyda isweydiiyo waxa saxda ee calaamadan loola jeedo. ani maadaama aan aqoonin dad badan ay la yaaban yihiin calaamada anaga aan isla aragnay ay la yaaban yihiin calaamadan waxay tahay. marka calaamada mar walba waxay tahay waxaan noogu jawaabi karo qofka channelkiisa ay saaran tahay calaamadan million views markaa gaartay oo qaybta kore ku saaran, ama calaamadan anaga insaan ognahay oo isku haystay inay tahay macnaha hadda dad badan ay ogyihiin inay tahay calaamada shaydaanka. waayii dambe la isku haystay qof walba calaamadaas muujiin loo qirayo ama macnaha la sheegayo inuu yahay qof dee la jira ama macnaha astaantaas shaydaanka muujinayo inuu yahay. marka mar walbaba waxaa arrintan xaqiiji kara ama laga ogaan karaa in de fanaanka markaas oo youtube-ka iska lahaa oo isaga xaqiijiyo calaamadan qolada youtube waxa ay wadato uu yahay, haddii macnaha uu isaga warka hayninna oo calaamadaas uu ogaado in youtube-kiisa qaybta thumbnail ahaan ay u saaran tahay sawirkaas Somaliland heesta uu qaaday sawir ahaan ay u saaran tahay, hadduunan ka warhayn say dadka ay nugu aaminin wax khaldan inuu thumbnailka u bedelo videoga si macnaha thumbnail qurux badan isla macnaha heesta iska turjumaysa oo ugu bedesho. calaamada million views-kana kulli wax la sii waaye calaamada million views-kana intuu soo qaato kusoo dhex diri karaa isla heesta. marka videogan waxaa kaliya aan rabay inaan macnaha kaga hadla isla sawirkaas fikirkaas ku aadan macnaha ani ahaan nuur abku ahaan qaybta iga aadan ani keligay ma dad badan isla aragnay. marka dadka isla aragnay ani muhiim waxay ila noqotay inaan ka hadlo maadaama fanaanku yahay fanaan walaalkeen ah, dadkan aan ogoleynay inaan ka fahmaan wax qaldan intay ka fahmi lahayn anaga inaan ka hadalno desay difaac ugu noqoto isagana waxaas duu warka haynin inuu ka dejiyo thumbnailka u bedelo heesta million views-kaasna oo si kale xataa intuu cutting ku sameeyo oo thumbnail usoo bedel macala million views-ka si kale usoo saarto thumbnail ahaan. marka muuqaalkan kooban waxaa idin rabay inaan idin kugu soo koobo inaa idin tuso calaamadaas inay macnaha de fanaankan isagana u arko wax macnaha kuma sugna. waxaa laga yaaba qolada youtube barnaamij ayaga ay wataan inay tahay horeysa idinkugu sheegay qolada illuminatics la leeyahay ama shaydaanka dadka macnaha shaydaanka ama wax caabudaba ama shaydaanka laftirkiisa qoladaas kulley si lagu sheego inay yihiin dad lacag badan oo dadka ay marin habaabeeyaan ama wax khaldan ay u sheegaan kulley saas darteeda ay kaaga samaysan karaan qofka caanka ama famoska inta badan ay soo weeraraan si ay ugu dhaadhiciyaan qofkaas inuu qaato diinta markaas ayaga ay haystaan ama diinta shaydaanka si loo yaqaano. marka kulley warkaas hadduu jiro hadduun jirin labadaba waxaa ka sugaynaa qofka markaas youtube-kaas iskale, laakiin thumbnailkaas waxaa waaye de calaamada saaran saa ujeediinba waa idinku celcelinayaa calaamadaas saaran thumbnailka oo qaybta kore million views korkiisa calaamadaas saddex geeska oo isha astaan waxay u tahay oo markii waayi dambe loo aqoonsanaya inay tahay calaamad lagu aqoonsado shaydaanka. marka waxaa rajeynaya inuu fanaanka ogeyna laga yaabaa in macnaha hadduu ogyahan wuu ogyahay hadduuna ogeyn oo calaamadaas dee maadaama dad badan ay ka aaminsan yihin inay tahay calaamada shaydaanka uu change ku sameeyo macnaha uu si dadka aynu aaminin intii aragti way aragt intaan arkin say weli intay arkin ka hor oo calaamadaas iska bedelo. daawadayaal marka maalmaha waa ka maqnayn magaalada waa soo laabanay muuqaal qurux badan iyo waqti qurux badan wada qaadan doonaa. muuqaalka xiga intaan kulmeyno waxay rajeynayaan bashbash iyo barwaaqo sidaas iyo nabadgelyo.